warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba ku soo dhawaada warkeennii maalinlaha ah oo aad kala socon jirteen Murti Media warkana waxay idin la socodsiinaysaa sidii caadada inoo ahayd anigoo ah Nimcada iyo Maxamed waa maalin Sabtiya 16 January 2021 qodobada warkeena maanta ugu doorka roona waxaa kamid ah muwaadin Soomaaliyeed oo muddo 30 sano kadib dib u helay gurigiisii maxbuus Soomaaliyeed oo muddo ka badan 20 sano u xidhnaa dhiig miiratada TPLF kulan lagaga wada hadlay xoojinta amniga deegaanka Soomaalida iyo Oromada ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee Garaad Maxamed Dool kulan lagaga wada hadlay xoojinta amniga deegaanada Soomaalida iyo Oromada ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee Garaad Maxamed Dool kulankan oo shir gudoominayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa ka soo qayb galay gobolada iyo degmooyinka xuduudaha wadaaga ee labada deegaan si la iskula gorfeeyo goldaloolooyinka jira ee wax u dhimi kara nabadda kuwada noolaanshaha shacabka labada deegaan waxaana shirkan madaxweynaha deegaanka Soomaalida ku wehelinayay wasiiru dawlaha wasaaradda nabadda dalka Dr. Fikru Ragase madaxa xisbiga barwaaqo ee deegaanka Oromada Fekatu Teseme iyo madaxweyne ku xigeenka deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Cusmaan iyadoo warbaahinada ay soo jeedinayeen maamulada gobolada iyo degmooyinka labada deegaan ay ahaayeen kuwa wada shaqayntoodu ay fiican tahay haddana kulankani wuxuu sii xoojinayaa in dhabaha loo xaadho helitaanka xiriir walaalnimo iyo mid darisnimo ee shacabka walaalaha ah ee Soomaalida iyo Oromada intaa kadib waxaa la isla fahmay waxyaabaha ama sababaha keena isku dhaca labada dhinac inay yihiin dhaqdhaqaaqyada deegaamaynta ee xuduudaha dhismaha mashruucyada ka ganacsiga dadka iyo hubka howlaha tahriibka iyo xatooyada xoolaha nool madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhankiisa sheegay in xaaladda nabadeed ee deegaamada xuduudda labada deegaan ay ka soo reynayso marba markii ka sii dambeeya sidoo kale madaxa xafiiska barwaaqada ee xisbiga Oromada Fekatu Tesema ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in labada deegaan ay iska kaashadaan sidii horumar loo gaarsiin lahaa labada shacab ugu dambeyntii shirkii waxaa ka soo baxay qodobo lagu soo xoojinayo nabadgelyada iyo daris wanaagga labada shacab maadaama ay soo dhowdahay doorashadii guud ee dalku maxbuus Soomaaliyeed oo muddo ka badan 20 sano u xidhnaa dhiig miiratada TPLF Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamuud wuxuu ka mid ahaa dagaalyahanadii ururka ONLF waxaa lagu qabtay sanadii 2001 agagaarka magaalada Dhuxun ee gobolka Nogab Cabdiraxmaan wuxuu 7 sano ee hore ku xidhnaa xabsiga ku yaala magaalada Xerar halkaas oo markii dambe looga sii qaaday dhanka magaalada Addis Ababa oo uu iyana ku xidhnaa muddo 3 sano ah Cabdiraxmaan waxa ugu dambeyn la geeyay magaalada Maqale ee deegaanka Tigray halkaas oo ku xidhnaa muddo ku dhow 10 sano Cabdiraxmaan ciidanka militariga ayaa ka soo saaray xabsi dhulka hoostiisa ku yaala xorriyadiisina dib ugu soo celiyay waxaa xusid mudan in la ugaarsanay madaxdii dhiig miiratada TPLF in badan oo kamid ah madaxdoodina la laayay in gacanta lagu soo dhigay halka intii u dambeysay la marmaraysanayo labaatameeyo xubnood oo ururka TPLF ka tirsan oo uu kamid yahay Sabhatnaga ayaa maxkamadda ka soo muuqday labaatameeyo xubnood oo kamid ah ururka dambiyada badan geysay ee TPLF oo ay ku jiraan Sabhatnaga iyo Abay Waldu ayaa ka soo muuqday maxkamadda darajada koobaad ee dawladda federaalka Itoobiya xubnaha ayay dambi baarayaasha boolisku ku eedeeyeen in ay weerar ku qaadeen ciidanka difaaca qaranka qaybtiisa taliska waqooyi ee magaalada Maqale booliska ayaa sidoo kale ku soo eedeeyay in ay dambiyo kale oo waxshinimo ah geysteen booliska ayaa maxkamadda weydiistay in ay siiso muddo 14 maalmood ah sifa ay cadaymo xoog badan ugu soo helaan dambiyada ay galeen maxkamadduna way u ogolaatay 14 maalmood ee ay boolisku codsadeen booliska deegaanka Oromia oo sheegay in laga tallaabo qaaday in ka badan 1000 askari oo ka tirsan booliska oo xiriir la lahaa OLA komishineerka booliska deegaanka Oromia ayaa sheegay inay ka qaadeen tallaabooyin kala duwan in ka badan 1000 askari oo ka tirsan booliska deegaanka oo lagu soo eedeeyay inay xiriir iyo wada shaqayn la lahaayeen kooxda xubaysan ee xoogga xoreynta Oromada OLA kuwaas oo ay dawladdu ugu yeedho OLF shane sida uu sheegay Arasa Madasa oo
komishineerka komishinka booliska Oromia oo wareysi siiyay EBA kooxda OLA waxa ay adeegsadeen taatikooyin kala duwan si ay u qasaan mujtamaca waxay ku dhex milmeen kuna dhex muusan saraakiisha booliska oo ku jiraan kuwa nabad sugiddu waxay ku dhex mushaaxeen qaab dhismeedka siyaasadda si ay xogaha u helaan sidoo kale u abaabulaan dadka si ay howlahooda ugu fushadaan General Arasa ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadeen saraakiisha booliska ee wada shaqaynta la lahaa kadib markii ay darseen taatikooyinka ay adeegsadeen kooxda OLA komishineerka ayaa sheegay in laga tallaabo qaadi doono cid kasta oo lagu helay in ay ammaanka khalkhal gelinayso hoggaaminta waxa ka mid ahaadeene Arasa ayaa ku eedeeyay kooxda OLA in ay yihiin dilayaal kuwaas oo abuuray isku dhac qoomiyadaha Oromia iyo qoomiyadaha kale Arasa ayaa sidoo kale sheegay in 1,100 oo ka mid ah askarta ururka hubeysan ee OLA wax la qabtay wax la dilay iyo wax isa soo dhiibay ay noqdeen wuxuuna intaasi raaciyay inay maalin walba isa soo dhiibaan muwaadin Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ah kadib dib u helay gurigiisii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa maanta ku wareejiyay furaha gurigiisa Abubakar Sidiiq oo muddo 30 sano ah uu ka maqnaa gurigiisa oo ku yaala degmada Kaaraan gudoomiyaha degmada Kaaraan mudane Abshir ayaa sheegay inuu Abubakar mulkiilaha guriga ugu yimid dacwad kadib ay dhanka kalena la kulmeen markay ogaadeen in uusan ninka ku jira oo lagu magacaabo Axmed Maxamed Saalim oo haysan wax sharci ah gurigan intaas kadibna ay guda galeen siday ugu wareejin lahaayeen mulkiilahaas gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa baaq u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir baaqaas oo ahaa in ay cidii ku jirta guri aysan lahayn ama haysata hanti aysan lahayn ku wareejiso cidii iska lahayd gudoomiyaha ayaa sheegay in hadda la joojiyay xilligii sharci darradu shaqayn lahayd kan oo ah qodobkeena ugu dambeeya warkeena maanta ayaa sheegaya xafladda daahfurka adeega cusub ee Premier Wallet oo ka qabsoomay magaalada Muqdisho xafladda daahfurka adeega cusub ee Premier Wallet oo uu soo kordhiyay bangiga Premier ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya adeegan tiknoolajiyadeed ayaa ah mid casri ah isla markaana ku shaqeeya taleefanada casriga ah ee gacanta adeegan ayaa macaamiisha bangiga Premier u sahlaya inay si fudud u isticmaalaan akoonadooda ka maamulaan moobilka gacanta munaasabadan ayay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ganacsato xildhibaano dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha bangiga dhexe ee dalka Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka Soomaaliya iyo Jamaal Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda qorsheynta oo ka mid ah mas'uuliyiintii ka hadashay munaasabada ayaa bogaadiyay horumarka uu ku tallaabsaday bangiga Premier waxaana ugu dambeyntii ka hadlay munaasabadan gudoomiyaha golaha sare ee bangiga Premier Jibriil Xasan Maxamed wuxuuna sheegay in bangiga Premier bulshada u adeego ujeedada adeegan cusubna ay tahay tayeynta adeega bangiga gudoomiyaha ayaa intaa ku daray in adeegan uu furan yahay bangiyada kale haddii ay ka faa'iideysanayaan ugana faa'iideynayaan macaamiishooda gudoomiyaha ayaa ku soo afmeeray hadalkiisii in ay ku tala jiraan siday uga dhigi lahaayeen adeegan midalka dibadiisa ku shaqeeya warkii aanu idinku talagalnay maanta daawadayaal waa naga intaan markii xigta ku kulmi doona hawada waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh